hogaamiyaha militariga Burkina Faso Ibrahim Traoré oo halkan hooseeyay kaga muuqanaya ayaa daawadayaal markii ugu horeysay weeraray Soomaaliya isla markaana wuxuu sheegay in Soomaaliya ceeb ay dhex taagan tahay lana qaadan kareenin. wuxuu hogaamiyaha marka sheegay Afrika waqti xaadirka la taagan yahay inay mudan tahay inay hor u socoto laakiin ayna mudnayn inay dib u socoto. tusaale wuxuu soo qaatay Soomaaliya wuxuu sheegay iyadoo leh ceebta ugu dheer Afrika in waqti xaadirkan wax la yaabo ay noqoto inay kalluun ka soo qaadato dalka Thailand isla markaasna sanad walba malaayiin dollar ay kaga baxdo. wuxuu sheegay marka in aan la qaadan kareenin sidoo kalena wuxuu weeraray wadamo kale oo Afrika. daawadayaal intaan faahfaahin idin kor waxaan ka codsanayaa hadday ugu cusub tahay channelka subscribe dheh muuqaalka like dheh oo sii share garay hadda la dhacdeena warka Ibrahim Traoré inuu xaqiiqi yahayna muuqaalka meel walba oo Soomaali joogto وجي سينا شرقري واضح داود الهجامية ملترية دالك بوركينا فاسو أتقانان إبراهيم تروري أيام مركي ورئيس الصومالي لوك الله سمي سلمر كان وحو شيء إن وقت حاضر كان أعلن قادن كرين أين المعقول هين أين كدا دجن قفل بأفريقيانا صومالي وحيبته ودير أفريقيا له إن وقت حاضر كان تيلان كلون وكسر قاصو وحو يجري مركا وفضيحات ووحى لوقاتنا إسلام مركا قفل بأفريقيانا أين كدا دجن in Soomaaliya ay arin noocaas ku talaabsato wuxuu tusaale soo qaatay wuxuu yiri 60kii wixii ka horeeyay waa macquul in wadamo Afrikaana la gumaysto sidoo kale wuxuu yiri waa macquul in faqrinimo Afrika lagu tilmaamo laakiin wuxuu sheegay waqti xaadirkan oo casri ah oo dunida digital ay tahay in aan la aqbali kareenin Soomaaliya xeebta ugu dheer Afrika leh inay kalluun Thailand ka soo qaadato sidoo kale wuxuu sheegay in Namibia iyo Angola iyo Nigeria iyagana galay ay ka soo qaataan wadamada Yurub iyagoo dhexdooda iska dhex gadan karaya sidoo kale hogaamiyuhu aad u careysan wuxuu sheegay marka in Soomaaliya musuq lagu tilmaamo oo wuxuu yiri waa wax loo qaateena iyadana waa la baabiin karaya laakiin bal aqbali karay ayuu yiri iyadoo xeebta ugu dheer Afrika leh isla markaana meel walba arinka ugu diiwaan gashan yahay inay kalluun ka soo qaadato dalka Thailand baahi ku qasbi karaysna inay jirin sidoo kale hogaamiyahana iyadana wuxuu dul istaagay Nigeria iyana la aqbali karay ayuu yiri in Nigeria waqti xaadirkan casriga in ay galay ka soo qaadato dalka Mareykanka sidoo kale wuxuu yiri dalka Angola iyana la aqbali karay ayuu yiri in iyana galay ka soo qaadato Argentina wuxuu yiri maxaan u qasbi karaya hadana Afrikaan waa isku tashan karayna dhaxdeena ayaa wax iska gadan karayna dhaxdeena ayaa macaamil karayna dhaxdeena ayaana sidoo kalena gumaystaha casriga iska qaadi karayna ayuu yiri hogaamiyahan ayaa marka u muuqan karaya inuu iminka Afrika hurdada ka kicinayo sidoo kalena fariinta dheer oo Afrika hawadu mariyana waxay noqon karaysaa marka mid iyaga hurdada ka kicin karaysa maadaama hogaamiyahan u noqday ninka kaliya ee Afrika iminka u soo baxay wata daawadayaal maxaa kaaga baxa marka hogaamiyaha Burkina Faso iminka Soomaaliya weeraray isla markaana ku tilmaamay dal barwaaqo soorana qeyraadkiis meel biyaalan iminkana kalluun Thailand ka soo gadanaya aragtidaas ugu leedahay muuqaalkana sii share garay